ergeyga gaarka ah qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Ambassador James Iswan ayaa gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay halkaasi waxaa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin kamida maamulka Koonfur Galbeed tagidiisa Baydhabo kadib waxa uu kulan la qaatay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagareen wariyahana Xasan Kulmiye ayaa ka soo diray warkan Baydhabo madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay ergeyga gaarka ah ee u qaabilsanaha qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya ninka lagu magacaabo James Wam waxayna ka wada hadleen arrimo badan oo ku saabsan dhinacyada bani'aadinimo iyo tan siyaasadda madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen kulanka kadib saxaafadda la hadlay ayaa sharxay waxyaabaha ay ka wada hadleen isaga iyo James Iswam wakiilka Soomaaliya ee qaramada midoobay Koonfur Galbeed howlaheeda socdo oo UN-ka ka wadaan meesha ay marayaan iyo sida fiican ay u socdaan iyo gargaarka bini'aadanimada iyo siyaasadda iyo arrimaha bulshada horumarinteeda wada hadal fiican ayaan sameynay aadaan u soo dhaweynay aadaan ugu faraxsanahay wuxuuna ballan qaaday in hore u socon doonaan waxyaalihii hore loo waday lana dardar gelin doono humanitarianka iyo developmentigaba si shacabka reer Koonfur Galbeed ay u helaan wixii adduunyada ay ka sugayeen aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan ku soo dhaweynaynaa Mr. James Iswam oo qaabilsanaha qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa dhankiisa shaaca ka qaaday inay ku dadaali doonaan sidii wax badan loogu qaban lahaa dhibaatooyinka bini'aadanimo iyo sidoo kale horumarka siyaasadda Koonfur Galbeed Soomaaliya that I have delivered in every one of my visits to the federal member states. And that is a message on the need for good relations between federal member states like Southwest State and the federal government. This kind of relationship between the center and the federal member states is absolutely vital for delivering services and good government to the Somali people. And it's a message that I've conveyed in Mogadishu and in all of the federal member states that I've visited. I want to thank again Southwest State President Abdiaziz Hassan Mohammed and his team for hosting us on this productive visit. Imaanshaha James Iswam magaalada Baydhabo ayaa noqonaysa midii ugu horeysay tan iyo muddadii la soo magacaabay Xasan Kulmiye Afrah Buntland TV Baydhabo